نوضي صاحب بيال صابر أدي أو معتصن تهاي سفنسوم هقول وناكسن أيضا هيسان سنة كان والسنة اللي قال الدوران أيوه قاب سويدن أيوه كان يسوع السنة ده حصو صعدة حسبية ده مدكتا معمولي وعلى أركي قابك حو معمولين waxa ay doonayaan xitaa ma qarsan oo waxa ay xitaa bidhaamiyeen qaabka dawladooda dambe ay u ekaan doonto xitaa hadduu mudaraad uu qabsado wasiirada cidda uu siinayo waa uu sheegay waxa uu sheegay in ST ay yeelan doonaan wasiiro oo aad u yeelan doona awood inta hadda ka badan inta hadda laga qaylinayo integrationka iyo immigrationka ayay qaadanayaan oo kale ah immigrationka waxa socdaalka arrimahaas iyo isdhexgalka waana labada mid ee hadda la dhahayo baasaboorka lagu ceshanaa deganaanshaha halkan laga qaadanaa qofka wadankan degnaanaya waa in arrintaas uu iska saxaa waxyaabaha la dhahayo ayay koow ka tahay labadaas hadduu qaatana dee wadankan qaabku ekaanaya waa la wada ogaanaya maxaa marka muhiim ah doorashadan muhiim waxay u tahay dhanka socdaalka dhanka shaqooyinka dhanka isdhexgalka dhanka canshuuraha waxyaabahaas ayaa waxyaabaha ugu badan ee laga doodayo adigoo aan ka doodin qof hebelkeen noo sharaxan waxaad eegtaa xisbiyada doodaya wixii ay kuwii hore ay sameeyeen iyo kuwan bidixda waxa ay muhiim u yihiin marka codkaaga dhiibo la soco mar walba warbaahinada gaar ahaan kuwa Soomaalida ah iyo kuwa ajaanibta ah ee raba in ay dadka dhiirigeliyaan tusaaleeyaan isla markaana ku tilmaamaan xitaa haddii aad shaki kaaga jiro halka aad u codeynaysid inkastoo Sweden qof walba uu xaq u leeyahay in qaab qarsoodi oo asaga uu og yahay qalbigiisa uu u codeeyo laakiin ogow haddii aadan codeyn codkaagu waa minus balaasna wuxuu u noqonayaa dhinacii aad ka soo horjeesay lahayd oo aadan codkaaga siin lahayn xitaa hataa la codeyn lahayd marka inaad codeysid waa muhiim in aad sidoo kale warbixinada ugu dambeeya aad raadisid xisbiyada aad la socotid waxa ay ku wanaagsan yihiin aad sii raadina waa muhiim codkaaga qaybaha bidixda si